هذا الخاص sida uu yiri waxa oran karaa wax jira buu sheegay oo run oo xaqaaqa halkan anaga joogna anaga Soomaaliland marka inta uu sheegay iyo inta badan ba waan ognahay oo nimanka halkan siyaasiyiinta halkan ama cidda hadda kuraas ku fadhida sida uu sheegay waa runtii wax ay danaynayaan masjidka oo Soomaaliland Soomaaliya oo dhan baan u hayntan marka waa ku raacsanahay dhinacyada qaarkood hadalkii sida uu yiri waana xaqiiqda weeyaan laakiin wada hadaladan Somaliland iyo dawladda federaalka Soomaaliya bal haddii ay istaagaan maxaa xal ah midnimadii la raadinayay iyo wada jirkii iyo in labada dhinac mar kale ay isu soo noqdaan soo dhibaato kuma keeni karto adeer soo maasan tahay wada hadalada halkan ay ka socdaan marka xaqiiqdan ku sheego ما هي ولا عضلة الصومالية الصومالية اللي حل الرادية لما نقول اختياره مرنا عنكرة كسرة مر تموت شبه دول كسرة معها ولا عضلة الصومالية الصومالية من حله ولا وحي دعي وحى مستقبل كله هل كان يكسر أنا يعني كشغل ما ودي إذا أنا ما رتهوشن أنا kala shaqeynayna waxay ahaayeen dadkii halkan joogay haday dhaqan tahay iyo hawo badnaato dadka hoggaanka siyaasadda ee Soomaaliya ayay ahayd marka halkan bay ka soo xirmayaan oo ka soo aftarmayaan sida hadda ay wuxuu wadaan hadda u dambeysay kursiga ku fadhida halkan bay ka soo xirmayaan wada hadaladii socday oo halkan iska taagayaan marka waxaan aaminsanahay anagu taan halkan u joognay halka ka wadnay ayaa taabta dibadda lagu yaan runta ila la sheegay tan baa maaragtay ka miisaan badnayn laakiin mar kasta waxay ka midaysan yihiin siyaasiyiinta reer koonfureedku inay run sheegaan arrimahana run ka sheegaan daacadna ka yihiin waa mid aan jirin weeye marka halkan bayba ka soo baxaysaa marka xaqiiqdii iyo go'aankii ugu dambeysay insha Allah anaga qaadan doonno haddii Ilaahay ka dhigo anaga xulina wada hadallada gebigeeda waayahay warka hadda Faysal Cali Waraabe ka soo yeeray ku aadan arrimaha wada hadalka adigana aad sheegtay in halkan aad u joogtaan xamar wada hadalladaasi iyo sidii marka looga mir dhali lahaa bal haddii sida uu sheegayo isagu uu tago magaalada Hargeysa baarlamaankiina inta uu fariiso go'aan uu ka gaaro idinku maxaad yeelaysaan mar haddii soo hawshiini meesha soo kama baxayso maya waa hawl isku maahan hawlo isku soo maahan annaga iyagu nama soo diran annaga istiray annaga dhaqan ahaan annaga ayaa ku shaqeynay dadkan walaalaha midnimadooda iyo heshiisiintooda dhibaatooyinka dhacay maaragtay xaluhelidooda iyo Soomaaliya hadday suuragal tahay oo looba ay suuragal tahay midnimo Soomaaliyeed ma suuragelaysaa waxaan baa naga ka shaqeynay dad kasta kala kulanay siyaasiyiinta koonfurta kala kulanay kuwa kursiga jooga iyo kuwa cid walba kala kulanay ka hadalay marka wax taas saameyn ku yeelan Soomaaliya oo iyaga wada hadlayay markii wax kasta wax ka wada hadlayna meelaha ku wada hadlayay wada hadalladaasna runtii waxay soo bilaabeen xilligii madaxweynaha Shariif Sheekh Axmed حقنا أحمد سيراني وإنتوري شريف شيخ أحمد وحان أمسنا هاي إنه شيء للسمية وباع كتبه وصوالي نبع إنه وحصة بالعربي أنت كدم بيسي وح اللي حضن الشيخ يضعنا وفي السعودية هو كل العوالي وزيترين أنت هذا كدم بيسي حكومتنا السمية وح ويستعجين وأنت وعلى السعودية ومعنا له مجرم أما داعي لقيه هاي ألقى مشهورني
marka la soo ururiyana siyaasiyiinta reer koonfureedku ma aaminsana midnimo ma aaminsana in laga wada hadlo maxaa shalay dhacay maxaa inaga khaldamay xisaabtan waxaa in laga hadlo ma aaminsana waxay aaminsan yihiin halkii lixdankii bay joogaan haddii maanta somaliland kusoo biirto waxay taagan yihiin halkii lixdankii sida lixdankii noogu timaadeen dowladii lixdankii noo yimi sidii lixdankii martin u ahaaday warma aynu wada hadallo oo wixii dhacayna ka wada hadallo maantana wixii wax ka duwan baynu gelaynaa dastuur wixii baynu qoranaynaa waxbaynu qaybsanaynaa cad maya waxaa horta taas waa kasoo horjeedaan marka waxaan ogahay hadda oo aaminsanahay oo aan ka muddo badan ururinayay inaanay diyaar u ahayn midnimo soomaaliyeed siyaasiyiinta hadda joogta iyo kuwa xukuumadda maanta hogaaminaya midnimo soomaaliyeed diyaar uma aha haddee waxa xabar ka socda waad la socotaa doorashada lagu sheegay annagii u joognay midnimada iyo isku haynta soomaaliya waktiga badan naga galay ayay nagu ixtiraami waayeen oo waxay ka shaqaynayaan hadda waxaanaan garanay waxaa la dooranayaa dad aanaan garanay cidda dooranaysa ma ciidamo ma waxay yihiin lama garanayo odayaashii dhaqanka ayaa midba meel lagu riixaya qaar laleeyahay waa la aftuwo si hoose lagana hadli maayo cidka hadlaysana ma jirto marka waxaa saa socda marka annaga oo halkan joogna ayaanu doonaynaa xaqiiqda ilaa annaga wada hadallaanu ku jirnay meesha iskama joogin cayaaruma joogin hadallaanu ku jirnay waxaanaan ka shaqaynaynay soomaalidaan la kulmaynay madaxda nimanka wadanka xukuumaha la kulmay waxaan oo dhan waxay ahaayeen tijaabooyin iyo tusaalooyin iyo ma la rabaa midnimo soomaaliyeed ma dhabbaan ma tahay ma la raba ma diyaar ma looyi waxaan bay ahayd horta xaqiiqdii oo maanta aad meesha inay soo ururayso shantii sane oo farmaanka ku fadhiya ay soo ururayso halkan bay ka soo xirmaysaa insha allahu tacaala go-aanna waanu kusoo saarayna go-aanna waanu ka qaadanaynaa annagu halkan joogna ayaanuna beesha caalamka oo aanu xoogagaan iyaga laftigooda isu nahay aanu ka codsanaynaa in xaqiiqda jirtaa ay sidaa tahay dadkan si walaalnimo maaragtay loo kala baxo somalilandna ictiraafkeeda la siiyo soomaaliyana la sugo bal inta ay soomaalinimada xitaa koonfurta soomaaliya ay xitaa ku heshiinayaan oo habay si xukumaan ay samaynayaan oo ay ka soo gudbayaan dowladahan faraha ay waxaan ka soo gudbayaan intaa waqtigeeda laakiin maaragtay inaan dhibaatadan halkan baan anagu marka aan doonayna baaqa inaanu ka jeedino qoraalka aan ku samayno marka iyagu haddii ay si u arkayaan annaga wax weyn bay noo tahay qiimo weyn bay noogu fadhidaa qiimo weyn bay noogu kacaysaa qiimo weyn baana kaga jawaabaynaa insha allahu tacaala halkan bayna kasoo caasitarmaysaa midnimada soomaaliya ictiraafka somalilandna halkan buu ka imanaya insha allahu tacaala halkan baanu kaga shaqaynaynaa si run ah oo aanan cidna ku xadgudbayn cidna ku gufay cidna ku hodabayn baanu halkan maaragtay aanu uga cadeynaynaa insha allahu tacaala waadna maadsan